dhanka kalena bayaan ka soo baxay ururka Xisbullah ayay ku sheegeen inay soo rideen diyaarad droonis ah oo Israel leedahay taasoo ku duuleysay hawada deegaanka Naheled ee dooxada Bekaa Valley ee bariga Lubnaan. Xogaha ayaa sidoo kale sheegaya in diyaaradan la soo riday ay ku dhacday isla deegaankaas xilli halkaas ay ka socdeen duqeymo dhowr ah oo Israel fulinaysay. arrintan ayaa muujinaysa awoodda sii baahaysa ee ururka Xisbullah. diyaaradahan droniska ah ayaa door muhiim ah ka ciyaara ururinta xogta sirdoonka, la socodka bartilmaameedyada iyo hagidda weerarada cirka. sidaa daraaddeed soo ridistaasi waxaa loo arkaa guul militari oo dhinaca difaaca u ah Xisbullahi. sidoo kale waxay muujinaysaa in hawada Lubnaan ay sii ahaanayso goob muran iyo loolal militari ka jiro. dhanka kalena Israa'iil ayaa weerar cirka ah ka fulisay magaalada xeebta ah ee Tayreeh ee koonfurta Lubnaan. weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay dhisme la degan yahay oo ku dhow cisbitaal, taasoo sababtay dhimashada 1 qof iyo dhaawaca ugu yaraan 17 qof oo kale, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Lubnaan. dadka dhaawacmay waxaa ku jira 10 ka tirsan shaqaalaha caafimaadka oo ay ku jiraan kalkaaliyaal caafimaad, kuwaasi oo waxyeelo ka soo gaadhay muraayado jajabay burbur u sababay qaraxaasi. saamaynta weerarkan ayaa ku koobnayn dadka rayidka oo keliya, balse sidoo kale waxay gaadhay xarunta caafimaadka lafteeda. qaraxyada ayaa dhaawac u geystay qolalka gargaarka degdega ah iyo qolalka bukaanada isbitaalka, taasoo sii adkayn karta adeegyada caafimaadka ee deegaanka. weerar kasta oo saameeya xarumaha caafimaadka wuxuu kordhiyaa culayska saaran nidaamka caafimaadka Lubnaan, gaar ahaan xilli dalka ay ka jirto xaalad daran iyo weliba duqeymo joogto ah. 3 badmaaxayaal oo u dhashay dalka Hindiyana waxay ku dhinteen weerar uu Mareykanku ku qaaday markab shidaal siday oo marayay meel u dhow xeebaha Cumaan. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in markabkan uu jabiyey xayiraad ay saartay maraakiibta la xiriira dekedaha Iiraan, isla markaana uu waday shidaal laga soo raray Iiraan, taasoo sababtay in la beegsado. geerida 3 badmaax ayaa dhalisay walaac weyn oo gudaha Hindiya ah, maadaama ay noqdeen dadkii ugu horreeyay ee la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarada Mareykanku ku hayo maraakiibta lagu tuhmo inay xiriir la leeyihiin ganacsiga shidaalka Iiraan. dowladda Hindiya ayaa si adag uga hadashay dhacdadan, iyadoo dalbatay in la joojiyo weerarada lagu hayo maraakiibta ay saaran yihiin shaqaalaheeda, waxayna walaac ka muujisay badqabka kumanaan muwaadiniin Hindi ah oo ka shaqeeya maraakiibta gobolka. xaaladda ayaa murugsan kadib markii wasaaradda dekedaha iyo maraakiibta iyo waddooyinka ee Hindiya ay sheegtay in 13 markab oo sita calanka Hindiya ay ku xayiran yihiin marinbiyoodka Hormuz. maraakiibtan waxaa saaran ugu yaraan 562 badmaax oo Hindiya u dhashay, kuwaasi oo wajahaya xaalad amni oo aad u khatar badan. marinka Hormuz waa marinbiyoodka ugu muhiimsan ee shidaalka dunida laga gudbiyo, waxaana colaadaha ka socda gobolka ay sabab u noqdeen in maraakiib badan ay hakadaan ama ay dib u dhigaan safaradooda. waxaa intaasi dheer in ka badan 18,000 oo badmaaxe oo Hindiya u dhashay ay ka shaqeynayaan gobolka Khaliijka. taas macnaheedu waa in colaadda sii fidaysa saameyn ku yeelan karto tiro aad u badan oo shaqaale rayid ah oo ku tiirsan shaqada maraakiibta ganacsiga. dowladda Hindiya ayaa hadda wajahaysa cadaadis ah inay hubiso ammaanka muwaadiniinteeda, iyadoo sidoo kale isku dayeysa inay ilaaliso xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay Mareykanka iyo dalalka kale ee gobolka. sida ay sheegtay warbaahinta Iiraanna, ciidanka badda ilaalada kacaanka Islaamiga ayaa ku dhawaaqay inay xidheen marinbiyoodka Hormuz, iyagoo sidoo kale sheegay inay weerareen 2 markab oo isku dayay inay si sharci darro ah uga gudbaan marinbiyoodkaas. wakhtiga warbixinta la baahiyey lama shaacin magacyada maraakiibta la beegsaday, noocyadooda ama heerka khasaaraha soo gaadhay. bayaankuse wuxuu sheegay in xaaladda amni ee gobolku ay gaadhay heer aan loo ogolaan karin wax maraakiiba inay maraan marinbiyoodka Hormuz. sida ay sheegeen, laga bilaabo wakhtigaas waxaa la joojiyey socodka dhammaan maraakiibta, ha noqdaan kuwa shidaalka qaada, kuwa ganacsiga ama nooc kasta oo kale. haddii go'aankan si buuxa loo dhaqangeliyana wuxuu noqon karaa tallaabo saameyn ku leh dhaqaalaha dunida, maadaama qiyaastii 5 meelood oo meel shidaalka dunida la isticmaalo uu maro marinbiyoodka ciriiriga ah ee u dhexeeya Iiraan iyo dalalka Khaliijka Carabta. si kastaba haatee, dhinaca kale Mareykanka ayaa si degdeg ah uga hor yimid sheegashada Iiraan. taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee US Central Command ayaa qoraal uu ku daabacay barta X ku sheegay in marinbiyoodka Hormuz uu weli furan yahay, maraakiibtuna ay si caadi ah isaga kala gooshayaan. waxaa kale oo uu talisku beeniyey wararka sheegaya in Iiraan weerartay markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo ku sugnaa marinbiyoodkaas. hadalka Mareykanku wuxuu muujinayaa in dowladda Mareykanku aysan aqbalin sheegashada Iiraan ee ah inay si rasmi ah u xidhay Hormuz, isla markaana ay doonayso inay xaqiijiso isu socodka maraakiibta caalamiga ah. dhacdadan waxay sidoo kale iftiiminaysaa khatarta sii kordhaysa ee maraakiibta ganacsiga ee ku shaqeeya biyaha gacanka Cumaan iyo Hormuz. muddooyinkii u dambeeyeyna waxaa jiray weeraro kala duwan oo lagu qaaday maraakiib shidaal, qaarna waxaa lagu khasbay inay joojiyaan safaradooda oo ay codsadaan gargaar degdega kadib markii ay waxyeelo ka soo gaadhay gantaalo ama weeraro ay markaasi la kulmeen.